kulanti wacan oo wanaagsan khiyarta hawada naga daawada ay ku soo dhawaada page-ka YouTube-ka aynu ku leenahay ee caasimada Channel warbixinada xilidan oo kale aadin kaga soo gudbin jirnay xildhibaano British oo bilaabay olole Somaliland loogu aqoonsanayo dalka madax bannaan Soomaaliya 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Britain ayaa dawladooda UK ugu baaqay in ay u hawlgasho sidii Somaliland uga mid noqon lahayd beesha caalamka oo aqoonsi caalami ah ay u heli lahayd xildhibaanadan ayaa 26 June oo ku beegneyd sanad guuradii 18 ee ka soo wareegatay markii gobolada waqooyi oo xornimada ay ka qaateen Ingiriiska ayaa qoraal dheer oo ay ku qoreen majalada caanka ah Politics Home waxa ay kaga warameen xiriirka taariikhiga ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Ingiriiska iyagoo Xuseen ay ka xun yihiin sida aysan shacabka reer Somaliland maanta u haysan xurriyadaasi oo ay heleen 58 sano ka hor ee sida fudud uga luntay xildhibaanadan oo ku caan taageerada qadiyada Somaliland waxa ay xildhibaanadan ay sheegeen in 58 sanadood laga joogo markii Somaliland ay xornimada ka qaadatay Ingiriiska iyagoo dalal badan oo Afrikaan ah iyaguna ay waqtigaasi xorriyada ay qaateen ay u dabaaldegayaan madax bannaanidooda laakiin waxay xuseen in Somaliland ay ka duwan tahay xaaladaha wadamadaasi oo ay waqtigani xorriyadeedii ay qaateen jamhuuriyadda Somaliland xaaladeedu si ahaan way u degan tahay waxayna heshiis midow siyaasadda ah ee la galeen jaarkooda Soomaaliya kadib markii xorriyadooda ay heleen Somaliland waxay xorriyadoodii ay soo ceshatay sanadkii 1991 ayay xildhibaanadu ku yiraahdeen qoraalkooda iyagoo xusay in guusha Somaliland ay ka gaadhay muddadaasi adkeynta nidaamka dawladnimo hase ahaatee ay xildhibaanadani 27 sanadood kadib Ingiriiska ama beesha caalamku toona aysan aqoonsan qarannimada Somaliland tani waxay ku hor istaagaysaa dalka in uu ka mid noqdo wadamada barwaaqa sooranka iyo hay'adaha kale ee muhiimka ee fududeeya kobaca dhaqaalaha iyo horumarka waxay xildhibaanada qoraalkooda ay ku sheegeen in Ingiriiska ay joogaan waxa ay ku barteen dad badan oo reer Somaliland waxay xildhibaanadan qoraalkooda ku sheegeen in Ingiriiska ay joogaan waxna ay ku barteen dad badan oo reer Somaliland tiro badan oo reer Somaliland ayaa waqtigani ku nool wax ka barta Ingiriiska kuwaasi oo ay ku jiraan kumanaan kamid ah deegaanada aan u metelno oo kaliya ayay lagu yiri qoraalka waxaynu xuseen in qurba joogtani ay xataa door muhiim ah ay ka qaateen sidii loo ansixin lahaa xeerarka muhiimka ah oo xayirnaa kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen xeerarka ka hortagga gudniinka fircooniga xildhibaanadan waxay qoraalkooda ay ku yiraahdeen Ingiriisku waxay deeq-bixiyaasha ugu weyn Somaliland waxay sidoo kale ay hogaaminayeen 27 wadan oo ku midoobay si ay madax bannaani 27 wadan oo ku midoobay in ay ka madax bannaanaadaan una kormeeraan doorashadii ugu dambeysay ee madaxtooyada ee November doorashadaasi oo lagu qabtay qaab isha bu'da lagu sawiro wax looga arko ku taala waxay ahayd doorashadii lixaad ee xildhibaanada 2003 ay reer Somaliland ay ka qayb galeen hanaanka doorashada habka xisbiyada badan oo caalami ah oo la sheegay in ay ahaayeen mid xor iyo xalaal ugu dambeyn iyaga oo u diray dawladda Ingiriiska ayay ku yiraahdeen munaasabada sanad guurada 18 ee ka soo wareegatay markii Somaliland oo xornimada ay ka qaadatay Ingiriiska oo ah maalinta Somaliland ay xaq u siiyeen inay ka mid noqoto ururka barwaaqa sooranka awgeed waxaan ugu baaqayaa dawladda Ingiriiska iyo dhammaanba geedi socodka Somaliland ay kaga mid noqon lahaayeen beesha caalamka taasi oo fursad faa'iido iyo barwaaqo dheeraad ah u ah dalka muwaadiniinta iyo waliba jaalkiisaba daawada intaas aynu ku soo koobaynaa warbixintii koobneed aynu kaga hadlaynay xildhibaano Britain ah oo bilaabay olole Somaliland ugu aqoonsanayaan dalka madax bannaan Soomaaliya daawadayaasha ku cusub channelkana waxaan ka codsanaynaa in ay subscribe ay saaraan YouTube-ka caasimada Channel si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay u helaan